تعالى وبركاته دمان هلكان حق سلامة أنت مقلكيga ma qayb taqaanay iyo dhamaan asxaabteeda بعد سلام حروا إن هلكان كشوي دمان arrinaa keenay inay been tahay laakiin aan ku adkeenaya inay been tahay oo aniga kasoo hadlayo dhahayo nabitaanka ay wadan iga daaya kulba mustaqbal yahay uu leeyahay qof aan doonay inuu guursado ma jiro laakiin beenta ay wadan iga daaya Soomaaliyeed oga Soomaalida dhamaantood maahan laakiin dadka qaar oo jecel dadka inay nabana ma kan bay abuurtaan oo ifsiq ka raadinayo iga daaya لبانتي ما يدون جعلها أصحابتي إذا أنتي نعبتها من جعلها ويا وحيسو كرنيس من هنا نوع لما مسلم يا أصحابتي مش قدرتوا ضمبين أيون نقول هذا الشيء وحنا شاكتين مقالك برا بلوس الوقوفة فيه أيضا كترجمة وياهاي مد بين أبورة وحنا برت هذا تيك توك مقال صور بتكون شاكتي إنه ياهاي وركاسي ور بين أبورة إسلام مركزنا لقفة فيه أيضا وحنا شاكتي تتكفى فيه إنه قرنيسو إسلام مركزنا أيهن تتكسر جيدا هرمركا يصيدوا كلونا أنجاري أي تري أيون نقول مريك هذا يسي أرمها سوشيال ميديا كصعدة شيء إن مقالك مقال galma laga duubay ayada asahaati ayuuni oo head gabar ku nool magaalada Muqdisho isla markaasna aan ka baraha bulshada Soomaalida gaar ahaan TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat iyo waxyaalaha halmaalay baraha bulshada Soomaalida ayaa waxa ay gabadhaani maalintii Khamiisteed muuqaalkan oo baraha bulshada soo galay isla markaana waxa muuqaalka lagu faaqiday baraha bulshada Soomaalida qof kasta oo magac kale ku leh baraha bulshada Soomaalidana muuqaalkaas uu ka falceliyay wuxuuna ka dhiibtay ra'yigiisa kaga aadan soo bandhigitaanka muuqaalkaasi inkastoo muuqaalkaasi dadka ka falceliyay baraha bulshada Soomaalida oo ahaa mid zaid ah isla markaana faafitaanka barnaamijkan oo sabab u ahaa caanimada ayuun qurux ayaa waxa dhacday in muddo 48 saac ka badan ah ay bariyaha bulshada aysan waxba soo dhigin isla markaana waxa la arkay bar Instagram oo ku xuriyeen dad ka badan 400,000 oo magaca ayuun ku qornaa oo dhammaan sawirada halkaas ku jira la tirtiray isla markaana janaalkaasi remove la dhahay oo laga saaray hawada Instagram-ka si kasta ha taaba ayuun qurux waa gabar Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho isla markaasna waxay qalanjadan quruxleeda reer Muqdisho ay soo aanbaxday sanadihii 2016 wixii ka dambeeyay ayadoo noqotay qalanjo caan ka ah geeyiga Soomaalida fadlan daa ku cusubtay janaalka subscribe saar si ay kugu soo dhacaan xogaa ugu horeen bartan soo galino like na saar muuqaalka si share gareeyo asxaabtaada